Inta badan marka qof looga sheekiyo dambi culus oo la geeyo qolka su'aalaha, sheekadu waxay ku dhammaataa laba siyaabood midkood: inuu qofka qirto dembiga isagoo ooyaya, ama inuu qareen dalbado isagoo gariiraya. Laakiin maanta, sheekadu sidaasi ma ahan. Ninkani aan ka hadlayno waa Jeffrey, waa nin sameeyey wax dad badan oo dambiilayaal ay ku riyoodaan keliya inuu booliiska ka adkaado, isagoo aan hal xaba ridin, aan qaylinin, aan iswaalin, isla markaana aan qareen wadin. Waa sheekada ninkii qolka su'aalaha u bedelay goob nasasho, booliiskii baariyana ka dhigtay darawaliintiisa gaarka ahaa. Subaxnimadaasi wax waliba si caadi ayay ku bilowdeen. Laba dambi baare oo khibrad leh ayaa Jeff ugu tegay goobtiisa. Ujeedku ma ahayn inay xoog ku xiraan, waayo waxay ogaayeen inaysan jirin cadeymo ku filan oo maxkamad lagu geeyo Jeff. Waxay u baahnaayeen hal shay oo keliya: in Jeff ka hadalsiiyaan. Sidaasi darteed, waxay u isticmaaleen xeelad jilicsan, iyagoo ku yiri Jeff, waxaa jira waxyaabo yaryar oo u baahan inaan kala cadeyno, mana raaci kartaa si aan saldhigga u tagno, xaggaas aan ugu wada hadalno. Jeff isagoo u muuqda qof aanan waxba galabsan, wuu oggolaaday. Wuxuu fuulay gaariga booliiska isagoo aanan katiinad ku xirnayn. Wuxuu u maleeyay, ama laga yaabo inuu si fiican u ogaa, in ciyaartan uu kaga gacan seereeyo baarayaasha. Markii la geeyey qolka su'aalaha, ciyaarta dhabta ayaa halkani ka bilaabanaysa. Qolku waa mid yar, kuraastuna waa kuwo aan raaxo lahayn. Waxaa loogu talagalay in qofka lagu cadaadiyo maskax ahaan. Dambiilayaashu waxa ay bilaabeen istiraatiijiyadooda koowaad: saaxiibtinimo. Waxay u keeneen biyo, waxayna isku dayeen in Jeff ay dareensiiyaan inuu la joogo dad raba inay caawiyaan. Baaraha koowaad ayaa si tartiib ah u bilaabay inuu Jeff weydiiyo su'aalo ku saabsan noloshiisa iyo halka uu ku sugnaa habeenkii dambiga dhacayay. Laakiin Jeff waxa uu watay qorshe u gaara isaga. Halkii uu ka jawaabi lahaa su'aalaha, Jeff wuxuu indhaha ku gubay baaraha, wuxuuna si degan oo aan cabsi lahayn u weydiiyey su'aal gilgishay kalsoonida baaraha: miyaan xiranahay? Su'aashaasi waxay qolka ka dhigtay mid aamusan. Baarayaashu waxay isku dayeen inay hareer maraan su'aashaasi, iyagoo leh, maya Jeff, keliya waan wada hadlaynaa. Jeff waxa uu maqlay jawaabtaasi, wuxuuna ogaaday in hadda awoodda ay gacantiisa ay ku jirto. Isla markiiba waxa uu tuuray su'aashiisa labaad: haddaba miyaan bixi karaa? Halkani ayuu ka bilowday dagaalka maskaxeed ee u dhexeeya Jeff iyo baarayaasha. Saacado badan ayay isku dayeen in xeelado kala duwan ay isticmaalaan. Mar way u hanjabayaan, marna way u naxariisanayaan, mar waxay iska dhigeen saaxiibkooda. Xitaa waxay isku dayeen in dembigaasi ay yareeyaan, iyagoo leh, Jeff, waan ognahay in si kasaadan u samaynin, keliya noo sheeg runta. Laakiin Jeff wuxuu u ekaa taalo aanan dhaqaaqin. Wuxuu u fadhiyaa qaab caajis ah, gacmihiisu way isqabsanaayeen, wejigiisna wax shucuur ah kama muuqato. Ma xanaaqsana, qof murugsan uma eka. Markasta way cadaadis saaraan, waxa uu ku celcelinayay isla su'aashii: haddii aanan xirnayn, aan iska baxo. Dambiilayaashu waxa ay bilaabeen inay quustaan. Waxay garowsadeen in ninkani uusan ahayn nin si fudud ugu dhacaya dabinkooda. Waxay arkeen aamusnaantiisa ay ka awood badan tahay hadalkooda. Ugu dambeyntii, Jeff waxa uu eegay saacadda, wuxuuna gartay in booliisku aysan haynin cadeymo ay ku xiraan xilligaasi. Wuxuuna eegay baaraha, wuxuuna si cabsi lahayn u weydiistay biyo uu cabo. Kadib markii loo keenay biyaha, wuxuuna sidoo kale weydiistay haddii uusan xirnayn inay geeyaan xaafadiisa, maadaama iyaga ka soo kaxeeyeen. Waa dalab la yaab leh, laakiin booliiska oo haysta eedeysanay dambi culus, haddana aanan haysan awood sharci oo ay ku joojiyaan, waxay ku qasbanaadeen inay aqbalaan, xaafadiisna ay geeyaan. Sanado badan kadib, Jeff waxaa lagu helay cadeymo rasmi ah, sidaas ayuuna ku gelayaa xabsiga. Sheekaduna halkaas ayay ku eg tahay.